السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan ka yara bidhaaminaynaa haddii aanu nahay xusbiga rajada shacabka xusbiga wadani waxaanu ka yara bidhaaminaynaa annagu tilmaanu baanu leenahay ee fulin ma lihin halkan waxaan anu ku hayaa oo aan inta badan ka hadli jiray xoolaha oo ah lafdhabarta dhaqaalaha dalkeena waxa iyaguna soo raaca oo la isku daray berigii dhaweyd xukuumadan kulmiye dambe ay wadanka qabasatay kalluunkii wasaaradii kalluunka iyo wasaaradii xanaanada xoolaha la isku daray isku darkaasi ama isku dar la mahadiyo noqdaa ama isku dar la eedu noqdaa labada wasaaroodba waxay ahaayeen laba wasaarood oo lafdhabara isqaadashadoodu waxba dhib may lahaateen haddii loo heli lahaa dadkii isku dari lahaa ee habeyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee cilmiyeyn lahaa waana labada ilood ee keliya ee anigu aan aqoonsanahay inay lafdhabarta dhaqaalaheena yihiin haddii la isku darina in la isku duldilo may ahayn sida imika muuqatana in la isku duldilay oo isku dul dhinteen baa muuqata xoolaha waynagii ka hadalay waxa inoo hadhay kalluunka oo aynu maanta ka odhan doonno isagana in yar oo kooban oo ilaa 4 qodoba inagoo geli doona waqtiyada dambe hawlihiisa faraha badan leh waxaanan wasaaradda kalluunka ee meesha wasaaradii kalluunka oo meesha ka baxday wasaarad kale lagu daray baa laynagu yiri laakiin ma muuqato waxa haddaba aynu ka soo qaadanaynaa anoo soo koobkoobaya kalluunkeenu isagoo aada u qaaliya doonya ayaa badda gala oo ay wasaaraddu u siisaa ruqsad doonyahaasi lama saaro cid waa doonyaha ajnabiya dabcan lama saaro cid saraakiil ka socota wadankeena 4,000 shilin baa laga qaadaa ama 5,000 shilin kiilogii dabadeetana markaasay badda galaan shabaagtay dhiganayaan iyo waxay jarrifayaan iyo waxaasoo dhanna cidi lama socoto taasi waa qodob oo waxa weeye markaa in cid la raaciyo oo la ogaado waxay guranayaan intii loo qoondeeyey ma tahay mise way ka badan tahay mise waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad waa kalluunka la yidhaahdo indhatooslaha oo in badanna laga hadlay wasaaradda iyo dad badanina ay muran badan iyo ay ka galeen indhatooshluhu haddaba muxuu yahay markaynu nidhaahno inuu yar ka taabanay isaga laftiisa horta kalluunka indhatooslaha la yidhaah waa nabaad guurka dhulka ka dhaca eed maqasheen oo kale ayuu ku yahay badda oo meeshii aanu joogin isagu sida cilmigu odhanayo ma joogo ma imanayo kalluunka kalena haddii baddeenna laga waayana kalluunka kalena wuu ka tegayaa weeyaan waanu taran dheerihoo 10 sannadood buu mar keliya dhalaa kalluunkaasi 10 sannadood ama ka badan buu ku dhalaaba marka kalluunkaana fasaxa badan ee wasiirku uu la dulhayo qalinka ee uu siinayo dadka qaarkii waa in laga joojiyaa la yareeyaa oo la joojiyaan uu ku talin lahayn si aanay badeenu u noqonin waxda xaalfo oo kalluunku uga guurin qodobka saddexaadna waxa weeyaan dhiirigelintii kalluumaysatadeena oo qayladoodu dhagaha jajabinaysa dadka oo meel walba ka qaylinaysa oo aan wax alla wax lagu dhiirigeliyaaba jirin halkii ay xaq u lahaayeen in la dhiirigeliyana malaha mooyaan si kale haddii ay tahay shabaagta haddii ay tahay mishiinada haddii ay tahay doonyahooda dayactirkeeda iyo waxaasoo dhan in gacan laga siyaabay ahayd tiina meesha way ka maqan tahay waxaanu leenahay wasaaraddu ha soo celiso kalluumaysatada dhiirigelin fiican ha la siiyo waxaa jira isaguna geerashkii ay samaysay hay-addii la odhan jiray fairfish geerashkii ay samaysay oo ahaa geerashka loogu talagalay in lagu sameeyo mishiinadan iyo doonyahan iyo waxaan ay kalluumaysatadu ku adeegsanayso oo dhan wuu xidhan yahay sidii ay wasaaraddu ugala wareegtay shirkaddii hay-addii samaysayna aynu qufulan yahay baanu anagu ognahay geerashkaana in la furo dadka loogu adeego ayaanu soo jeedinaynaa ta kalena waxa weeyaan qaboojiyayaasha anigoo soo koobaya qaboojiyayaashii kalluunka intaad doonto maanta haddaad soo hesho kalluun badan waa inaad qaboojiye haysataa aad ku ridato oo inta kaa ii baxda maaha inta kale aad ku haysato qaboojiyayaasha laftooda hay-aduhu waxbaysan sameeyeen meelo badan saylac lughaya meelo badan bay ka sameeyeen sida berbere oo kale dabeetana qaboojiyayaashaasi laftoodu imika siday meesha usii gurmayeen wasaaradduna ay aada iyo aada uga dhaga adeegeysay meeshii way ka baxeen aad bay u yar yihiin iminka qaboojiyayaashu inagoo tiradooda mar kale soo heli doona inta shaqaynaysa iyo intaan shaqaynayn kalluumaysataduna aada iyo aad bay ugu baahan yihiin waayo qofkii wixii uu soo qabsaday way ka khasaaraysaa haddii aanu la helin meelu ku qaboojiyey iyo meelu ku kaydsado kaydkaana inay wasaaraddu ku dadaasho ayaanu u soo jeedinaynaa
intaa waxaan kusoo koobayaa maanta inta kalluumaysiga laakiin waynu geli doonaa gudageli doonaa had iyo goor kalluumaysigu dee uu ka ballaaran yahay intaa waxaan haddaba odhan lahaa wasaaradda lagu dul dilay lama iskumay dul dhimanin laakiin sideedaa loo dilay wasaaraddii kalluunka meeshiina way ka baxday ciddii doonaysaana de way soo hubsan kartaayo tii hore waxabaan idhi xanaanada xoolaha xafiisyaha u furan baabuur baa joogta waxbaa jooga tan iyadu maba muuqato waddankaba meelay ka jirta lama yaqaano dee ciddii caddaynaysa meelay ka jirto wasaaraddaasi joogtana iyadaa sheegi doonta waan soo gaabinayaa maanta marka intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu